iyadoo guud ahaanba shacabka Soomaaliland meel kasto ay ku sugan yihiin ba ay xusayaan 18 May ayaa goobtii lagaga dhawaaqay 18 May 1991 madax banaanida Soomaaliland 27 sano kadib waxaa mar kale dib looga xusay magaalada Burco waxaana kala soo qayb galay shacabka iyo maamulka Togdheer madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici wasiiro iyo mas'uuliyiin kale waxaana ay munaasabadu u dhacday sidoo tan maalin taariikh aad u weyn oo aynu kaga samirnay 50,000 oo inan oo aan qoran iyo aabayaashood iyo hooyooyinkood iyo waalidkood oo xornimadan u soo halgamay oo ku dhintay oo ku geeriyooday anigu dadka reer Burco fariin baan u dirayaa nabadgelyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dawladda ka mas'uula intii isku dayda gobolka Togdheer nabadgelyadeeda inay khalkhaliso wallahi billahi tallahi wa xabimayno eedin may ma wax fudud si fududna kuma iman waxay ku timi wada jir iyo waaltinimo waxa isugu tagay bulsho weyntii qaranka Soomaaliland odayaal lahaa salaadiin lahaa min gees ilaa gees waxa weeyaan Burco dib hal isugu noqdo oo waxyaabaha yaryar ee meelaha ka dhacayeen maqmaqlaynay ay ka mid tahay sanaag waxa weeyaan yaynaan dhagu jalaqsiin dadka halkaas ku haya waa dad deegaan wada degan iyaga isku dana iyaga iska keenxiga laakiin inaan kala raacay yaan caadifadu ina qaab ya dhagta waxay naga soo dhacay aleena beesha caalamku inay iska dhigatirta maaha 40 milyan rabitaankooda iyagoo maartay himiladu ah in qaran madax banaan noqdeen iyagoo horeba ahaa 1960 laga wixii ka horeeyay ay ahaayeen maxkamiyadii Ingiriiska ay Soomaaliland oo xuduud gaar ah leedahay oo dad gaar ah ku nool yihiin qabashada adduunyada mar walba ay jirtaa mar walba dhagahayga u furan ka soo bilaabo sool walaaheega sool waa suuragal tabasha jiri karta haday Burco dhexdeeda tahay in dhexdeena wax ka tabana jiri karaysa haday odol tahay tabasha jiri karta laakiinse ma aha midaan ku dumino iyo midaan sharafteena iyo nabadda maanta haysano oo wixiina soo mareen ogeyn midaan ku dumino maaha iyadoo aan ku dhamaysan karno wada hadal iyo walaalnimo iyo miisa wada fadhiiso Xabiib Cige Xasan Universal TV magaalada Burco